xaflad aad u ballaaran isla markaana si aad loo soo agaasimay ayaa maanta waxay ka dhacday degmada Dacar Buruq ee gobolka Maroodijeex taasoo ay ujeedadiisu ahayd furitaanka xafiis cusub kaasi oo deegaankaas uu ka furanayay xisbiga mucaaradka ee wadani xafiiskan oo noqonaya kii ugu horeeyay ee halkaas ka furtaan waxaana si ballaaran u soo dhaweeyay furitaanka xisbiga wadani xafiiskan ka furtay degmada Laasgeel dadka deegaankaas ku dhaqan oo muddo u dareynayay in xisbiga wadani xafiiska furan doono deegaankaasi ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee deegaanka Laasgeel waxaanu yiri wadani imka noqon mayno horaan u ahayn wadani imka ma noqonayno ee horaan u ahayn waxaanu leenahay waxa halkan hoos yimaada degmada Laasgeel waxa hoos yimaada 24 tuulo hoos yimaada 24 tuulo baa hoos yimaada 24 ka tuulood waxay u baahan yihiin in la gaarsiiyo daryeel waxay leedahay xukuumad ay ku leedahay ama mid joogtay iyo tadbiiqanaysaba waxaanu leenahay dadku wuxuu baahan yahay wax badan loo qabto wadani waxaanu weydiisanaa waqtigeeda gaadha hadii Ilaahay gaarsiiyo inuu dariiq waxaanu caasimada Berbera caasimada Hargeysa iyo dekada caalamiga geesta kale waxa halkaas ka hadlay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadani mudane Daawud Xasan Jaamac iyo Marwo Caasha Cali Mareykan oo ah xubin ka tirsan golaha dhexe xisbigaasi wadani waxaana yiraahdeen baahida Ilaahay baa naga saaray Ilaahay baan weydiisanaynaa mar labaad waxaan u baahanahay dhibaato jirta dhib iyo dheef anagu waanu idinla wadaagi doonaa maanta dhibtu jirtaan idin imanaynaa maalintaad barwaaqaysantiina waa idla joogaynaa labada dareenkiina waa idla qaybsanaynaa waa idla leenahay waxbaynu wada leenahay waxa ma kala lihin haddaan intaa kaga tago waxa lagu guda jiraa xilligii isdiiwaangelinta waxaynu doonaynaa oo dadku ka dhawaajiyeen oo degmada Laasgeel ka hadashay in ay u dhaxeeyaan laba magaalo midna magaalada xiyad tahay midna dekadii caalamiga ahayd ee Berbera tahay dadku waxay sheegeen qayni waxa xisbi baynu iska daba cararnaa hadhow markuu soo baxana xisaab la'aan baynu ku galnaa hadhowtana waa laynagu guuraa waa laynaga tagaa laakiin maanta maxaynu u baahannahay wadani inaynu ku gallo xisaab inaynu xuduudeena midayno inaynu la xisaabtanno hadhow markuu soo baxana aynu la xisaabtanno imika waa garanaysan inta yadan idin timi insha Allah waxaan rajaynayaa inuu gudoomiyuhu oo isaguna saaka salaan nookiin soo faray inuu idin yimaado idinkuna ay sii habaysan idinka oo dhan oo diiwaan gashan codkiina ku xisaabtantaan meesha marinaysaan iyo waxa ku bedelanaysaan laakiin hadii aynu iska jiboono oo aynu codkii bixino hadhowna jibadaas baa laynagu dhaafaya marka waa inaynu ismidaynaa waa inaynu xuduud iyo dhaqaale iyo codba aynu wax ku bedelanaa oo tuulooyinkeena horumaraan oo aynu gobolnimadeena higsanaa oo wixii degma imika maxaynu ku haysanaa degmada horta ugu horeynaynu wax ku helno wixii degma lahayd oo dhameystiran kuntii gabagabadii gunaanadkii soo gaafmeeridii waxa halkaas ka hadlay la taliyaha gudoomiyaha xisbiga wadani Marwo Faadma Siciidi oo halkaas kaga dhawaaqday in xisbiga wadani iyo mas'uuliyiinteedu ay garab taagan yihiin deegaanka Laasgeel waxaana tiri qaadaynaa inaynu soo celino iskuuladiina waan ogahay dhibaatooyin fara badan inay ka jirto sidii aanu idin caawin lahayn waxa weeyaan inaan falowgeed qabanno waanaanu sii eegaynaa baahideedana waan eegaynaa waxaad ogaataan Dacar Buruq oo degmada Laasgeel waa jaleelo waa darar weyne waa meelaha Hargeysa ay biyaheedu ka timaado inaad idinkuna markaa aad biyo la'aataan sharciba maaha waa ceeb biyaha ilaa Hargeysa la geenayo waa in horta Dacar Buruqna la keeno waa inay reer Dacar Buruq ay helaan biyo waa inaad qaraar cabtaan dadna ay macaan ay ka hiigsadaan ilaa halkaan ogahay laga keeno taas waxa shay xaraana waana mid loo baahan yahay inaynu dawladana aynu ka ololayno annakuna aanu ku guuleysano ballan baan idin qaadaynaa inaanu wixii aanu ka qaban karayna inaad heshaan biyo macaan aan falowgeed qabanayno insha Allah bidmillaahi kariim